haweeney la noolayd HIV sidoo kaleetana qabtay nooc ka mid ah kansarrada dhiigga ku dhaca ee loo yaqaano acute myeloid leukemia ayaa markii loo sameeyey cord blood stem cell transplant oo ah in la beddelo unugyada asalka ah ee ay kasoo farcamaan dhammaan unugyada dhiigga kuwooda red blood cellska loo yaqaano iyo kuwa kale ee WBC-ga amaba white blood cells iyo plateletska. Unugyadaasi asalka ah oo ku urursan dhuuxa lafaha ayaa lagu beddelayaa kuwa u dhigma balse badqaba oo laga soo qaaday xarigga mandheerta. Haweeneydani ayaa markii loo sameeyey daaweynta noocan ah ee unugyada asalka ahaa ee stem cellska loo yaqaanay loogu geliyey, waxaa la arkay in dhiiggeeda uusan kasoo muuqanin HIV-gii ay la noolayd. Muddo 14 bilood ah oo aysan qaadanin daaweynta HIV-ga antiretroviral therapy ayay u muuqatay mid kasoo bogsanaysay, sida lagu shaaciyey 15-kii bishan shir looga arrinsanayay fayruusyada loo yaqaano retroviruska iyo infekshannada ka faa'iideysta difaaca jirka oo hoos u dhaco retroviruses and opportunistic infections. Haweeneydani oo ahayd mid la noolayd HIV muddo 4 sano ah markii laga helayay kansarka dhiigga ayaa waxa ay qayb ka noqotay cilmi baaris soo bilaabatay 2015 oo ay ka qayb qaateen 25 qofood oo la nool HIV sidoo kalena qabay cudurro ay ka mid yihiin kansarrada dhiigga. Cilmi baaristani oo ay xiriirinayeen International Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical Trial Network ayaa waxaa iska kaashanayay jaamacadaha California iyo Johns Hopkins. Waxa ayna daareed in la ogaado waxtarka ay cord blood stem cell transplant-ga u leedahay daaweynta kansariska, waxaana si ku talagal ah loo adeegsaday unugyo stem cells ah oo mutation ku leh receptorska loo yaqaano CCR5 co-receptors, kuwaasi oo ah meesha ay HIV-gu amaba human immunodeficiency virusku uu ku dhago si uu u galo gudaha unugyada difaaca jirka. Daaweynta qaabkani ayaa noqotay hal dhagax oo 2 shimbir lagu dilay, maadaama cudurkii kansarka ahaana uu qofku ka bogsanayo sidoo kalena uu jirkiisu develop gareynayo hannaan uu isaga difaaco fayruska HIV-ga. Haweeneydani bogsatay ee qaybta ka ahayd cilmi baaristani ayaa markii loo sameeyey cord blood stem cell transplant 37 bilood kadib waxaa laga joojiyey daaweyntii ay hore ugu qaadanaysay HIV-ga, waxaana kasoo wareegatay intii ay daawo la'aanta ahayd 14 bilood oo aysan wax daawo ah u qaadan HIV-ga. Dhiiggeediina lagama helin wax caddaynaya in HIV ay qabto. Haweeneydani ayaa noqonaysa qofkii saddexaad iyo haweeneydii ugu horreysay ee ka bogsata amaba remission gasha, waxaana ka horreeyay oo keliya 2 nin. Bukaankii koowaad waxaa loo yaqaanaa Barlin patient ama bukaankii Barlin, wuxuuna ahaa nin kasoo jeeda dadka loo yaqaano Caucasian-ka. Daaweyntiisii kadibna waxa uu noolaa 12 sano oo uusan HIV dhiiggiisa laga helaynin. Waxa uuna dhintay September 2020, waxa uuna u dhintay nooc ka mid ah kansarka dhiigga ku dhaca ee loo yaqaano leukemia-da. Bukaankii labaad waxaa loo yaqaanaa London patient, waxa uuna kasoo jeedaa dadka Laatiinka. Waxa uu 30 bilood ahaa mid aan dhiiggiisa laga helaynin wax HIV ah kadib markii loo sameeyey cord blood stem cell transplant. Haddii cilmi-baarisyada socda ay noqdaan kuwa soo saara daaweyn rasmi ah oo faal u wada ah dhammaan dadka qaba cudurka HIV-ga, caafimaadka ayaa waxa uu ku tallaabsanayaa in la daaweeyo HIV-ga. Dad badan oo dunida ku nool oo cudurkaasi qabana waxay u noqon doontaa fursad cusub